magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa lagu qabtay sanadkii labaad oo xidhiidha tartanka orodka ciyaaraha kaasoo sanadkan loo ordayay 5 kiiloomitir halka sanadkii hore loo orday 10 kiiloomitir wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada Somaliland iyo jaamacadda Sahal University ee magaalada Laascaanood ayaa iska kaashaday qabsoomidda orodkaasi wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Boos Mire Maxamed iyo mas'uuliyiin ka socday wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee Somaliland ayaa ka soo qayb galay munaasabadii orodkaasi lagu ordayay ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Sahal injineer Maxamed Jaamac Sahal Philippine kaasoo sheegay ahmiyadda orodku leeyahay tartankani aan garab taaganahay dhalinyarada orodka waa tartankii labaad kii ka horeeyayna sanadkii hore ayuu kana kii labaad weeye mar walbana jaamacadda Sahal iyo tiimweynaha Sahal Software waxay diyaar u yihiin inay garab istaagaan dhalinyarada dhinaca maskaxiyan iyo caafimaad ahaan iyo aqoon ahaanba hal ku dhigayga waa waarmeysida warakaaro gobolka Sool runtii waa sanadkii labaad ee orodkan si toos ah xiriira ay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaruhu u soo abaabusho mar labaad waxaan u mahadnaqayaa jaamacadda Sahal oo nagu garab istaagan mar kasta sidii ay uga qayb qaadan lahayd dhiirigelinta dhalinyarada gobolka Sool yaa 70-nadii bay ahayd waqtigii uu eraahdo Buraale uu jaamac arkay inuu orodka tayo ku leeyahay maanta waqti dheer kadib waxa halkan aynu ka raadinaynaa inaynu kumanaan jaamac oo kala aynu helno wiilashii 1ka 2 iyo 3 iyo ilaa 10ka galayna runtii dhiirigelin baa loo soo jeediyay waxaan leeyahay muddo dheer kadib waxa ilaahay xamdiya in aynu si joogto ah gobolka Sool orodadii ugu qaybin doono wadagtiina gobolkan maanta aniga siday qiimo ugu leedahay waa dareemi karaa anigu waa taariikhda dalka marka Soomaaliya laga hadlayo meelii dadka ugu magac weyn ka soo baxeen wad garanaysaan haliyayga ugu qaalisanaa Soomaalida Cabdi Bila Cabdi oo garoonkan magaciisa lagu maamuuso sharaf bay tahay maanta ay kala qayb galo waxa kale oo ka soo jeeda gobolkan xagga orodada marka laga hadlayo anigoo jaamaca Ibrahim Maxamuud Aadan jaamac Bile Maxamed Axmed Maxamed Buraale oo coachkeygii ahaa in kale jira Axmed Gaas jaamac Wiil Jaajuur dad aad u fara badan dadkii ugu qiimaha badnaa orodada marka laga hadlayo ummadda Soomaaliyeed oo dhan ayaa ka soo jeeda gobolkan dhalinyarada maanta markaysan dhalinyaro aad iyo aad u fiican oo firfircoon in joogto waxa aad iyo aad runtii qiimeyn u leeyahay aad iyo aad ugu mahad celinaya isuduwaha gobolka Fuad oo aad moodo shaqadiisu inay laab ka bantay gobolada kale ama su'aasha kale runtii tartankii orodada 5 kiiloomitir oo ay ka qayb galeen 127 ilaahay baa mahad iskale orodka 5 kiiloomitir ah igu guuleysiyay marka labaad waxaan mahad u celinayaa wasiirka ciyaaraha Boos Mire maayirka magaalada oo soo mahad celinayaa على عبد النور جامع walaalkay oo orodka ka horeeyay kaalinta koobaad galay aan isagana halkii saac aan kaga sidayday maantana isagoo aan joogin aan anigu u bedelay kaalinta koobaad isagana ugu dambeyntii waxa halkaasi ka hadlay wasiirka ciyaaraha iyo dhalinyarada Somaliland Boos Mire Maxamed kaasoo bogaadiyay dhalinyaradii 10ka ahayd ee kaalmaha hore ka gashay orodkaasi waxa weeyaan maanta waa guul inaynu orodkan halkan ku qabanno waana siyaasadii dawladdan degmo walba sidaa loogu qabto degmo walba sidaasaynu u ordaynaa in yar haddaan hore u sii galo waxaan halkan uga mahadnaqayaa ilaa ciddii taageero ka geysata ciyaaraha ama ordo ha ahaadaan ama kubada ha ahaadaan waxaan doonaynaa shacbiga inaanu ku soo jeedinno iminka ciyaarahan ama orod ha noqdaan ama kubad ha noqdaan halkan loogu qabtay waxaa toos u maalgelinaya wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa barbarkayga taagan gudoomiyaha jaamacadda oo orod hore maalgeliyey waxaa